waa wiil uu shaydaan duufsaday, aabbihiisna waa shiikh dadka qur-aanka bara. waxaa fasahaadiyeen saaxiibadiisa xunxun, waxayna ka leexiyeen jidkii toosnaa. maalin maalmaha ka mida aabbihii baa ogaaday inuu wiilkiisa raacayo saaxiibadan faasidiinta ah, iyagoo ku kacaya fal xun oo sino ah. wuxuu aabbihii isku dayay inuu wiilkiisa awood u sheegto uu celiyo, balse wuu kari waayey. alle ayuuna ka tuugay inuu joojiyo wiilkan siduu doono. hal saac kadibna wiilkii baa la soo celiyey isagoo galay shil gaari, taasoo kaliftay inuu socon waayo. dhakhaatiirtina waxay waayeen sabab cad oo keentay ama ka dambaysa dhacdadan. wiilkiina wuxuu ku soo aruuray kursiga la riixo, wuxuuna bilaabay inuu karaadsado aabbihii, maadaama uu aabbihii alle ka tuugay sidan. aabbihiina wuu ka murugooday ilaa uu ka geeriyoodo. wiilkii wuu ka sii xanaaqsanaa. hooyadii iyo walaalihiina waxay ka dalbadeen inuu aabbihii ugu duceeyo naxariista Rabbi. habeenada ka mida wuxuu ku riyooday wiilkii riyo la yaab leh. wuxuu arkay isagoo qubuuraha jooga oo kuwii geeriyooday qabriyada ka soo baxayaan, iyagoo guranaya waxyaabo dhulka lagu tuuray. waxaa ku dhex jiray nin weyn oo fadhiya, kaasoo aan sidoodoo kale waxyaabaha ay raadinayaan aruurinayn, mana ku mashquulayn waxa ay gurayaan. muddo kadib isla riyadii buu arkay kuwii dhinta oo dhulka ka qaadanaya waxyaabo. wuxuu u tegay ninkii wuxuuna weydiiyey, waxaan arkay adigoo fadhiya misana iska indhatiraya waxa ay dadkaas aruursanayaan. haddase waxaan ku arkaa adigoo sidoodii oo kale aruursanaya, ee maxay guranayeen? wuxuu ku yidhi, waxay aruursanayeen wanaagyo. marka uu yimaado qof oo uu dembidhaaf u weydiiyo alle qofkii uu waayey oo uu ku daro muslimiinta, waxay wanaagyadu ku fidaan dhulka, iyaguna way soo baxaan, waxayna gurtaan inta ay karaan oo xasanaad ah si ay uga caawiso maalinta aakhiro. sababtaan aniga u fadhiya markaas uma baahneen xasanaadkaas, waxaan lahaa wiil wanaagsan oo ii soo duceeya. haddase markaad aragta anigoo baaraya oo guranaya xasanaadka iyaga camal, sababtu waa wiilkaygii wanaagsanaa oo dhintay, iyaga camal baan aruursanayaa si maalinta aakhiro aan ugu baxsado. miyaadan xifdin hadalkii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ee ahaa, idaa maata bni aadam inqadaca camaluhu ilaa min 3: sadaqatun jaariyah, wa cilmun yuntafacu bih, wa waladun saalixun yadcuu lah. wuxuu wiilkii ku soo toosay aadaankii salaada subax isagoo la qaylinaya boohin oo dhahaya, waan ku jeclahay aabba, iska kay cafi waxaan kuu sababay adiga iyo qalbi adeegaygii. ilaahayow aabbahay u dembi dhaaf una naxariiso. ilaahayow u dembi dhaaf mu'miniinta rag iyo dumarba, muslimiinta rag iyo dumarba, inta nool iyo inta dhimatayba. kadib qoyskiisii ayaa ku soo tooseen oohintiisa iyo ducadiisii, waxayna bilaabeen inay dejiyaan. walaalkiis ayuu ka codsaday inuu ka caawiyo weysaqaadka, geeyana masaajidka si uu salaada subax ula soo dukada jamaacada. waxaa ka soo wareegatay maalmo, wiilkiina salaad kasta masaajidka ayuu ku dukanayay, wuxuuna niyeystay inuusan dib ugu laaban waddadii xumayd ee uu alle subxaanahu wa tacaala ka soo celiyey. habeenada ka mida salaadii subax ka hor wuxuu riyo ku arkay aabbihii oo u dhoola caddaynaya kuna leh, wiilkaygu waan ku saamaxay, ilaahayna wuu kuu dembi dhaafay. aad ayuuna ugu farxay bishaaradan, wuxuuna alle u sujuuday sujuud mahadnaq ah. kadib wuxuu tegay masaajidkii si uu ugu soo dukado salaadii subax isagoo kursiga ku fadhiya. imaamkii ayaa aad ugu dheeraaday ducadii, waxaana ka hortay wiilkii ilmo, wuxuuna arkay jirkiisii inuu daalay. markuu salaamo naqsado wuxuu kor uga kacay kursigii isagoo lugihiisii ku istaagay, wuxuuna tukaday 2 ragco si uu Rabbi ugu mahadnaqo. dadkii salaada ku tukanaya hareerihiisa ayaana u yimid si ay ugu hambalyeeyaan. imaamkiina dhegta ayuu wax ugu sheegay isagoo laabta geliyey, iska jir inaad ilowda fadliga uu alle ku siiyey iyo siduu kuugu naxariistay. haddii ay naftaadu kuugu yeerto macsi, ku laaba kursigii, hana ka kicin ilaa aad istoosiso. waa walaalkiin Axmed oo idin leh, waxay nafteenna noogu yeeraysa waxaa ka qiimo weyn waxa uu alle inala rabo. aragtidaada maxaa laga baran karaa muuqaalkan? waa wacyigelin guude inoo sheer gareeya.